بسم الله الرحمن الرحيم. kusoo dhawaada kooraskayna cusbay. Kooraskan waxaan ku baran doonaa JavaScript. Waxaan ogaa JavaScript koorsooyin badan ayaa laga sameeyay oo af Soomaaliga markaasi lagu turjumay ama af Soomaaliga markaas loo adeegsaday. Sidaa daraadeed kooraskan JavaScript waa crash course, course kooban. Waxaan ugu talagalay fundamentalka inaan tuso kadibna aan ka gudubno. muhiimadda u sameynaya kooraskana wuxuu yahay in markaasi aan kaga faa'iideysano frameworks JavaScript ay leedahay. sidaas daraadeed waxaan sameyn doonaa qorshaha insha Allah. waxaan baran doonaa frameworks kaleeta, balse mar raba inaan ka bilaabo markaas framework Node ha ahaado ama React.js ahaato ama wax kaleeta ahaado framework kaleeta JavaScript ay leedahay ahaato inaan ka bilaabo mar sababta waxaan diidaa kooraska inaan bilaabo balse qofka haddana fundamentals haddana ay ku adeegyihiin taa ayaa diidaa. sidaas daraadeed waxaa markaasi go'aansaday in waxyar xasuusin yar aan sameeyo qofkii boorka isaga qaato crash course inaan sameeyo JavaScript oo videos iska kooban kadibna markaasi aan u gudubno qaybihii markaasi xiisaha lahaa wixii saxda markaasi aan ku sameyn lahayn hadday ahaa lahayd markaasi mobile application ama hadday ahaa lahayd web application iyo wixii markaasi la xiriiray. JavaScript waxyaabo badan ayaa ku sameyn kartaa. sidaa ogtahay JavaScript waa luqad markaasi caan waxayna caan ku tahay dhankan webka ayay caan ku tahay. JavaScript waxyaabo badan ayaa u isticmaali kartaa markaasi ay ka mid yihiin in markaasi aad ku qurxisid ama behaviorska page-ka leeyahay inaad wax kaga bedeli kartid. sidoo kale awoodda kale ee JavaScript markaasi ku sinayso waxaa ka mid ah in aad web ama website aad sameyn kartid adigoo isticmaala JavaScript markaasi frameworkskeeda. waxaa kaloo awood u leedahay inaad sameysid mobile application. haddii aad baratid JavaScript then intaas awood ayaa u leedahay inaad sameyn kartid marka frameworks maadaama isaga mid ay yihiin. sidoo kale waxaa awood u leedahay inaad sameysid markaasi wax loo yaqaano web applicationska. waxaa kaloo awood u leedahay markaasi inaad ku sameyn kartid game development. marka qof walba wuxuu aadi karaa dhinaca markaas uu xiisanaya. marka fundamentalka markaa baratid qofka asiga wuxuu go'aansanaya dhinaca markaas uu jecel yahay. haddii uu jecel yahay markaasi mobile developmentiga dhanka mobile developmentka ayuu aadaya. haddii markaas uu jecel yahay dhanka web developmentiga wuxuu aadaya markaas dhanka web developmentiga. haddii qofka uu xiiseynaya dhanka gameska ayuu aadi karaa. balse intaaba markaas waxa aas-aasi u ah ama qof inuu yaqaano ee laga maarmaan ay tahay JavaScript. okay maroo marka wax sharaxaad badan inaan ka bixiyo JavaScript maxay tahay, JavaScript maxaa loo isticmaalaa, intaan waan sheegay. adigana isku day markaasi in researchigaaga aad sameysid Google-ka gal JavaScript si barbar waxyaabo badan markaasi aad ka ogaan kartaa. waxaan kusoo koobay JavaScript for programming language. waxaan arki doonaa markaasi koorskan gudaha marka uu seegan waxyaabo badan ayaan ku baran doonaa. kadib anagoo markaasi hadafkeena ay tahay hore usoo sheegay frameworkskana xooga saarno. sababta ma doonayo oo kaliya luqadda inaan ku noqnoqono marna luqadda JavaScript inaan barano oo kaliya ma rabno. muhiimadda waxay tahay framework inaan barano markaasi qaabka markaasi loo sameeyo website sax ama website-ka maanta adduunka laga isticmaalo sidii loo sameeyo ama sidii markaasi loo sameeyo mobile-ka caadiga ama application mobile-ka adiga isticmaalaysa sidii loo adeegsado anagoo markaasi isticmaali doona lagu magacaabo React Native. sidoo kaleeta waxyaabo badan aan rabnaa markaas inaan sameyno mustaqbalka insha Allah, balse luqadan asaasigeeda xoog saarayna marka koowaad kadib dhankaas ayaa u gudbaynaa. okay si markaasi u bilaabo JavaScript maxaa u baahan tahay markaasi JavaScript u bilaawid wax ay kaaga xayran tahay malahan. laguma dhahayo luqad hore soo baro wax kala soo sameey laguma dhahayo kaliya computer inaad haysato. sidoo kale waxaa u baahan tahay oo kaliya code editor-ka ama editor-ka inaad editor mid ka mid ah inuu ku jiro computer-kaaga. sidoo kale waxaa u baahan tahay wax lagu magacaabo browser oo anaga u isticmaali doono waxyaabo badan browser-kaas inaad computer-ka uu ku jiro. intaa oo kaliya ayaa u baahan tahay. waxyaabo yar ayaa iska jiro waxyaabo yar HTML iyo CSS waa u baahnaan doontaa maadaama dhanka JavaScript la xiriirta dhankan webka, balse aqoon oo in xariif zaid ah ku tahay looma baahan. laakiin wax haddii kaaga bilaaban yihiin mushkil ma lahan.
okay waxaan sameynaa markaasi waxaan soo kicinaa terminalkeena ayaa soo kicinaya sida aragtaanba waxaan isticmaalayaa aniga Linux ayaan isticmaalayaa waxaan isticmaali kartaa Linux ama Mac ama Windows ayaa isticmaali kartaa qofba markaasi oo iska markaasi uu xiiseynaya ama uu jecel yahay ayuu isticmaali karaa okay waxaan sameynaa markaasi folder ayaan sameynayaa folderkaas waxaan ku sameeyaa desktopka ayaan ku sameysanayaa si sahlan waxaan sameyn karaa markaas right click inaan dhaho new folder okay new folder ayaa leedahay haddii aad isticmaalaysid Windows ama hadda isticmaalaysid markaasi Linux wixii la xiriira new folder kadib folderkaas magac ayaa u bixinaysaa okay simple magaca u bixinayno maadaama course-kan uu yahay JavaScript u bixinayaa okay JavaScript okay crash course u bixinayaa kadib waxaa leeyahay create aragtam simple ama adigoo adeegsanaya markaas terminalkaaga adigoo adeegsanaya ama isticmaal command line-ka ee Windows-ka CMD-da ama PowerShell-ka isticmaal ama terminalka caadiga isticmaal waxaa dhihi kartaa si sahlan waxaad toos u tagaysaa badanaana waa arkaysiin waxaan isticmaali doonaa command line-ka maadaama command line xoogaa kasii sahlan yahay adigana waxaa ku fiican inaad barato command line sidaas daraadeed marka waxaa isku baranaysaa laba shay JavaScript adigoo baranaya haddana waxaa sii baranaysaa markaasi commands-ka ee leedahay terminalka loo adeegsanayo badanaba okay waxaa dhihi kartaa markaas cd oo markaas u taagan change directory waxaa tagi karnaa desktopka ayaa tagaynaa de haddaa qortid oo tab aad dhahdid automatic wuu ku dhamaystiraya desktopka ayaa qaabkaas ku tagnaysa aragtaanba inta markaad taagantahay waxaa sameyn kartaa folder waxaa leedahay make oo loo soo gaabinaya markaasi mk kadib directory waxaa usoo gaabinaysaa dir kadib hal space kadibna folder name-ka ama directory name-ka ayaa meeshaasi ku sheegaysaa kadibna waxaa leedahay enter ayaa leedahay sa aragtaan inta maxaa kaaga soo baxay folderkaas okay waa arki doonaa sidaan u isticmaalayo waa arki doontiin insha allah marna waan ka sameyn doonaa video markaasi ee qaabka loo adeegsado terminalska ama command lineska sida loo adeegsado marna waa arki doonaa insha allah okay marka muhiimadan hadda waxay tahay folderkaas awana JavaScript maadaama course-kan inta uu socdo cashir walba maalin walba aan sameyno waxaan ku keedin doonaa qaybtan folderkan ayaa ku keedin doonaa okay waxaan tagayaa markaas folderkaas ayaa tagayaa si folderkaas gudihiisa u galo waxaa leeyahay terminalka anigoo taagan maadaama hadda desktopka aan taagan cd ayaa leeyahay kadibna waxaan qorayaa markaasi folderka meesha saaran magaciisa ayaan qorayaa kadibna waxaa leeyahay waxaa leeyahay tab ayaa leeyahay enter ayaa leeyahay sa aragtaanba hadda wuxuu igey folderka gudihiisa ayuu igey markaasi folderka gudihiisa ayaan ku dhex jiraa okay intaan markaas sameeyo meeshaan folderkan waxaan isticmaalayaa waxaan ku furi doonaa Visual Studio Code ayaan ku furayaa markaasi anigoo markaasi dhahayo code kadibna xalid dot macnaheedu waxay tahay folderkan ayaa waxaa lagu furi doonaa lagu magacaabo VS Code-ka kaasi oo markaasi ah editor-keena u isticmaalayeen okay VS Code-ka haddii aan aragno waxaan soo keenaa markaasi browser-keeni Google Chrome marka waxaa u baahan tahay waxaan isticmaalaya markaasi code editor han qofba waxa uu jecel yahay ayuu isticmaali karaa isticmaal fadlan haddii aad jeceshahay Atom ama Sublime ama Visual Studio Code ama Notepad-ka balse aniga waxaan kula tali lahaa inaad isticmaashid Visual Studio Code maadaama uu leeyahay extension aad u fara badan marka extensionskan waxyaabo badan ay ka caawin doonaan insha Allah dadka badanaana developerskan waxay isticmaalaan Visual Studio Code ay isticmaalaan sidaas daraadeed marka isticmaali doonaa Visual Studio Code-kan haddii aad isticmaalaysid markaasi Windows ama Mac ama Linux qofka waxa uu isticmaalayo markii website-kan ama page-kan aad booqato qaybtan waxaa kaga soo bixi doonta saartaanba downloadski balse ana hadda waxay soo qabanaya markaasi operating system-kayga ayuu akhrinaya markaasi sidaas daraadeed ayuu waxay siinaa options-kan inaan download geliso karo aan ku shubo karo marka haddii aad isticmaalaysid wax kaleeta wuxuu ku soo qabanaa markaas insha Allah window qofka isticmaalaya window ayuu soo qabanaya kadib download ayuu dhihi karaa ama si sahlan wuxuu dhihi karaa markaasi other platforms haddii aad isticmaalaysid operating system kaleeta kadib waxaad dooran kartaa haddii Mac ayaad download dhehaysaa haddii aad isticmaalaysid Windows waxaa leedahay Windows ayaad markaasi download ku sameynaysaa okay intaa markaa downloadkaas aad samaysid Visual Studio aad soo dejisay computerka waxaa ku jira markaasi Visual Studio Code ayaa ku jira oo isticmaali doontid
editorkeeni waxaa kaloo baahan tahay sa aragtaan waxaa isticmaalaya browserkan waxaa isticmaali kartaa Chrome waxaa isticmaali kartaa Firefox balse waxaa tanna kula taliya inaad isticmaashid Chrome maadaama ka isticmaal fiican yahay ka qurux badan yahay waxaan isticmaali doonaa markaasi oo anigan ahaan xiiseynaya markaasi inaan isticmaalo Chrome kaas ayaa markaasi isticmaaleynaa okay waxaan soo kicinaa markaasi Visual Studio Code ayaan ku soo kicinaya markaasi page-keeni waxaa leeyahay markaasi code kadibna waxaa leeyahay .enter ayaa leeyahay intaa markaas meesid seconds kadib waxaa ku soo kici doonta automatic markaasi folderkii oo lagu dhex furo markaasi Visual Studio Code-ka okay sa aragtaanba waxaa noo soo kacay markaasi Visual Studio Code-ka ayaa noo soo kacay intan sa aragtaan waxaa noo soo baxay folderka ayaa noo soo baxay muhiim maahan inaad qaabkan usoo gashid ama qaabkan usoo furtid waxaa usoo furi kartaa wadooyin markaasi kala duwan adigoo markaasi tagay file ayaa tagaysaa file ayaa leedahay kadibna waxaa leedahay markaasi add folder to workspace inta markaa dhahdid ama kelimkaasi sid automatic waxaad tagaysaa markaas meesha folderka uu ku yaal ayaa tagaysaa kadibna folderka aad markaas adeeg rabta ayaa select leedahay kadibna waxaa leedahay add ayaa leedahay qaabkaas ayaa ku sameyn kartaa taa waa waddo markaas waddada kaleeto waxay tahay okay aan iska xirnaa markaa waddada kaleeto waxaan sameyn karnaa Visual Studio Code ay caadi usoo kicinaynaa okay tan markaa soo kicino waxaan sameynaa folderkii aan rabnay ayaan soo qaadaynaa kadibna drag and drop ayaan sameynaynaa waa ku deynaynaa qaabkaasna markaasi waa kusoo furi karnaa intaas waddo ayaa u isticmaali karta fadlan isticmaala markaasi waxaad markaas aad jeceshahay maadaama waxaan ay yihiin wax iska basic ah qaabka Studio Code-kan ee folderka lagu soo diray okay intaan markaas sameyno waxaan isticmaali doonaa markaasi wax lagu magacaabo extensions waxaad tagaysaa qaybtan extensionska ku qoran tahay iconskaas ayaa kelig leedahay extensiono markaasi kala duwan ayaa u isticmaali doonaa extensionska markaasi waxay naga sahli doonaa ama fududeynayaan code-keeni ama qaabka markaasi anaga u qoran ayuu markaasi inoo sii sahlaa shayga ugu horeeya aad u baahan tahay markaasi in computerkaaga ama Studio Code-ka aad ku shubtid ama ku install gareysid waxaa lagu magacaabaa live server live serverkan wuxuu naga caawinayaa markaasi code-ka markaan wax qorno automatic page-ka inaan anaga tagno oo refresh aan dhahno markaasi uma baahnina page-ka tagno refresh ma dhahayno automatic refresh asiga ayaa noo sameynaya waxaanu sahli doona insha Allah wuxuu noqon doonaa markaasi live serverkan Studio Code-kaaga fur extensionska tag kadib waxaad ku shubaysaa live server ayaa waxaa leedahay install hadda aniga disable isoo qabanaa hore ayaa ugu shubay balse haddii usan ku jirin waxaad qaabkan camal usoo bandhigma waxaa leedahay kadib install balse ku shub live serverkaas waxaa isticmaalaysa aragtam ilaa 9 milyan wax ka badan ayaa download ayaa lagu sameeyey okay midda xigto aan isticmaali doono insha Allah idan waxay noqon doonaa waxa lagu magacaabo Prettier Prettier-kan waxaan u isticmaalaynaa asigana waxaan u isticmaalaynaa sa aragtaanba waa code format ayaan isticmaalaynaa code-keeni inuu markaasi uu qurxiyo waxaa laga yaabaa code-kaaga haddii new file aan dhaho code-ka saamka u qortid waxaa laga yaabaa mid inuu xagga inuu kaa aaday midna xaggaas uu kaa aaday marka save dhahday automatic waxaa dhacaya markaasi code-kii qaabka markaasi asigu isku leeyahay ayuu u safaa markaasi oo isugu xijinaya okay kan ayaa install leedahay inta install markaa sameysid waxaad copy ku sameynaysaa intaan hoose ayaa waxaa ku leedahay copy ayaa leedahay copy markaa ku sameysid okay copy ayaa leenahay waxaad tagaysaa settingka ayaa tagaysaa kelig ayaa leedahay kadib waxaad tagaysaa u dhufanaysaa settingkaas ayaa kelig leedahay intaa markaa sameysid qaybtan searchiga waxaa ku qoraysaa Prettier ku qoraysaa Prettier waxaa leedahay markaasi kelig ayaa leedahay intaa markaa sameysid waxaa arki doontaa markaasi waxyaabo badan meeshan ka saxinaa shayga ugu hore oo baahanaya markaasi meesha ku qoran tahay single quad-kan oo JSX kaasi okay tixar okay sync macnaha markaasi double quotation hadduu markii ahaa single quad ayuu ka dhigayaa waxaa kaloo baahanaya markaasi semicolon haddii semicolon oo code-kaaga lahay semicolonka automatic waa laga qaadayaa tan aragtaanba single quad ayuu ka dhigayaa semicolon-kana automatic waa laga qaadayaa
maadaama JavaScript semicolon markaas wax yarnaa semicolon muhiim uma ahan JavaScript. Okay, inta markaas sameysid waxaa kaloo u baahan tahay lagu magacaabo onSafe. Okay, onSafe tan ayaa markaasi ayaa tick saaraysa. Macnaheedu waxay tahay fileka markaas save dhahdid automatic codeki wuxuu isku sameynaya markaasi qaabka isku lahay ayuu isku qurxinaya ama isugu aadinaya. waxaa kaloo u baahan tahay markaasi in aad diiwaangeliso editorka inaad ku diiwaangeliso ayaa u baahan tahay. Okay, waxaad samayn kartaa JSON ayaa qori kartaa ama adiga qaabka ku tagi lahayd edit setting JSON-kaas ayaad samaynaysaa. kadib waxaa leedahay edit ayaa leedahay. sa aragtaanba meeshan waxaa ku daraysaa meel ka mid ah qaybta hoose. sa aragtaan hadda inta ayaa ku daray meesha markaasi qofka uu rabo ayuu ku dari karaa paste ayuu ku leeyahay, balse kan waad ka tiraysaa labadaas braces waa ka reebaysaa. marka inta ayaa samaynaysaa kadibna waxaa ku samaynaysaa markaasi save ayaa leedahay. inta markaas samaysid okay, inta markaas samaysid setup keeni markaasi waa inoo diyaar. meesha isticmaal qaabka ku isticmaaleen iyo meesha aan ku isticmaaleen inta waa inoo diyaar. maxaa u baahanay marka maxaa noo xigo? waxa noo xigo wuxuu yahay qaabkii markaasi oo shaqadeeni aan ku bilaawi lahayn ama shaqadeeni aan ku sii socodsiin lahayn. qaabkaas markaasi ayaa u baahanay. okay, wax kaleetana extension kaleeto iska jiro, laakiin extension wal markii u baahana markaasi ayaan intusi doona qaabka loo install gareynaa. balse hadda waxaa ku shubtaa labadaasi printerkan iyo waxaa ku shubeysaa iyo wax lagu magacaabo live serverkaas. labadaas ayaa dirtaan waxay noo yihiin muhiim noo ah. okay, laga xir. saaragtaanba folderkeeni mty wax ku save gareysan ma lahan. si markaas waxa ugu save gareyno ama u bilaawno waxaa u baahannahay horta laba shay. shayga koowaad waxaa leenahay waa html ama file html oo markaas aan u bixinayno index.html ayaa leenahay. waxaa leenahay markaas index.html kan wuxuu na noqon doonaa html keeni maadaama dhanka browserka aan la tacaamuleen. waxaa u baahannahay markaasi html filekaas inaan meesha ku abuurno. waxaa kaloo u baahannahay markaasi wax lagu magacaabo style. lacala haddii aan css aan isaga baahano style ayaa u baahannahay, balse style hadda ma sameynayno. waxaa kaloo u baahannahay wax lagu magacaabaa scripts. okay, js dabcan magacani aan qoray muhiim maahan, laakiin muhiimadda waxay tahay intaan extensionkaasi dambe .js markaasi filekaaga u dambe ayaa muhiim ah. inta ayaa samaynaysaa, balse magaca ka horeeya scripts aad ku qoray waxaad doonta ayaad ku qori kartaa. inta ayaa samaynaysaa. inta markaas message waxaa leedahay inta ayaa leedahay. sa aragtaan waxaa noo soo kacay meeshan scripts ayaa noo soo kacay. okay, tusaalaha ugu horeeya markaasi oo aan samaynayno horta waxaa baahan html kana meeshan ku qorno. html waxaa dhigi karnaa inaan furno html tag waa xiranaa. okay, sidoo kaleeta headkii body waxaas waa wada dheer. aniga notepad ma isticmaalin, waxaa isticmaalnaa Visual Studio Code. sababta Visual Studio Code u isticmaalin waxay tahay code completionkaas ayaa muhiimadiisa ayay tahay. simple waxaa leeyahay markaas calaamadaasi calaamatu cajabkaas ayaa sameynaya. sa aragtaan waxaa ka soo baxay imidkaasi abbreviationkaasi. tan extension waaye. extensionkan marka si default ah wuxuu la socdaa Visual Studio Code-ka ayuu si default markaasi oo ula socdaa. okay, inta markay ku soo baxdo waxaad dhigi kartaa markaas tab ayaa leedahay. tab hadda automatic maxaa dhacayo waxaa noo soo baxay html keeni boilerplate keeni oo diyaarsan markaasi ayaa meeshaas noogu soo baxay. kadib qof wuxuu bedeli karaa title-kii ayaan sidaas ku bedeli karnaa, ama waxaa samayn kartaa inaad qortid html ayaa leedahay. kadib html5 ayaa tagaysaa, enter ayaa leedahay ama tab ayaa leedahay. midii markaas adiga jecesha ayaa samaynaysaa. labadaba markaasi waa isku mid. okay, intaa markaas samaysid waxaan bedelaynaa markaas title-ka ayaan bedelaynaa. waxaan dhigi karnaa markaasi JavaScript crash course in 2021 maadaama sanad cusub aan galnay sidaa daraadeed. okay, okay, kadibna waxaa leenahay markaasi okay h1 ayaan sameynayaa kadibna class ayaan siinaa. okay, mid kaleet waa jirtaa badanaa waxaa aragteen markaan isticmaalaya Visual Studio Code-ka ama editorka markaan isticmaalaya badanaa waxaa adeegsadaa shortcut ayaa adeegsadaa. tusaale ahaan hadda waxaa ka mid ah h1 ayaan qoray, balse ma aanan sameynin h1 oo sidaan caadiga u taqaanid ma aanan sameyntaa ma sameynin. sababtoo ah
intii tagskaas aad furaysid ama aad xiraysid waqti ayaa markaasi kaa lumi kara. sidaa daraadeed markaas waxaan adeegsan doonaa shortcuts ayaa adeegsan doonaa. shortcutskan waxaan isku daynaa mar walbo aan sameynayo inaan sharxo insha allah. waxa ugu horeeya waxaa leenahay h1 class kuma dareeno class like hadda ku dareen dot ayaa adeegsan doonaa laakiin class uma baahan hadeertaan. markii css ka aan qurxinayn ayaa waxaan adeegsan doonaa lagu magacaabo classeskaas. okay h1 ayaa leeyahay it means h1 automatic ayuu ifraya wana iyo xiraya markaas enter ayaa leeyahay saragtaanba ayuu ifraya kadibna waxaan u bixinaya markaasi hello world ayaa ku qoraya intaa markaas ma xalay save ayaa leeyahay balse okay hadda mid aan aragno hadda waxaan soo sheegay operator ku shubo save control z ayaa ka noqday save markaa maxaa dhacay code kan fiiri heading wuxuu ka bilaabanayaa space code ayuu ka bilaabanayaa save markaa automatic mujeda space ayaa ku darsan waa for space ayaa meesha ku darsamaayo qaabkaas ayuu u sikanayaa control z ku soo celi waxa sameynaya markaas muxuu yahay waxa sameynaya waa operator kaanti ama extension ka data aan isticmaalin oo markaas aan ku soo magacaabnay operator kaas ayaa sameynaya. okay operator okay internetka daciif u yahay. okay operator kaas markaasi ayaa sameynaya extension kaasi aan macnaha code kaas sidaas ku design gareynaa save ayaa leedahay automatic qaabkaas ayuu isku qurxinayaa. haddii markaasi ku dartay semicolon camal maxaa dhacay save markaa dhahdid aragtaanba code ku qurxina balse semicolon hadda inta laguma baahna maadaama html semicolon aan laga isticmaalin. okay inta markaas sameyna waxaan u baahannahay markaan waxaan anaga qornay inaan browserka ka soo bixiyo sidee markaas browserka ugu soo bixinayna waxaan soo sheegay dati laba shay extension ayaa ku shubaynaa. extension kood waxa ku sheegay operator kan shaqada uu qabto hadda ayaan aragnay ugu horeen oo wuxuu noo qurxi code format ayuu noo sameeyay. shaqada labaad oo extension labaadna wuxuu yahay live server kan wuxuu yahay waxaan soo sheegay page uma baahan inaan mar walba refresh dhahdid sidaas daraadeed waxaad tagaysaa markaasi index.html ayaad tagaysaa kadib waxaa leedahay right click kadib waxaa leedahay open with live server ayaa leedahay ama si shortcut waxaa leedahay alt plus l alt plus o haddii aad isticmaalayso markaasi mac ama linux windows dabcan waxaa filaa shortcut ayuu markaasi ku muujinaya. okay open ayaa leedahay automatic sa aragtaan wuxuu ka soo kacay page keeni mujeda ku soo baxay browserka. haddii dhinacan iska soo dhigno kana inta aan geeno okay laba qayb haddaan ka dhigno fiiri waxaan sameynaa markaas qoraalkan ayaa bedelayaa hello world updated save markaan dhaho automatic qoraalkan anigoo refreshkaas aan tagin ayuu wuxuu sameynayaa refresh isku sameynayaa. okay save ayaa leeyahay mujeda automatic refresh dhacay qoraalkiina markaasi qaabkaas ayuu ugu daray. live server muhiimadiisa markaasi waa taa oo waqtigii adiga aad tagi lahayd oo refresh adiga gacanta ku sameey lahayd ayaa meeshaasi ka baxayo. waxa uu isticmaalaya markaasi ib-gaas ayuu isticmaalayaa ama local host oo ku gali kartaa balse waxaa muhiim ah portigaas ee mar walba uu ku saxan yahay 55 okay fileka markaas aan galeen waxaa lagu magacaabaa html index.html kaas. okay qaybtan inta ayaa ku joojinaya maadaama qaybtan aan ku soo baray markaasi wax yar oo hordhac yar oo javascript ah iyo qaabka markaasi environment-geena anaga u setup gareynay anagoo isticmaalayna Visual Studio Code-ka iyo browser-kana markaas loo magacaabo Google Chrome labadaasi shay. sidoo kale waxaan soo aragnay laba extension oo markaasi aasaasi ah waad ka maarantaa balse aad ay ku anfacayaan oo markaas loo magacaabo live server iyo operator kaasi oo code designing ka ama code formatting ka ah iyo live server kan oo shaqadan refresh kaas markaasi meesha ka saarayo. qaybaha xigo insha Allah waxyaabo badan aan ku baran doonaa. waxaan isku daynaa crash course maadaama crash course uu yahay oo aan rabno waxyaabo muhiim oo kaliya aan ka soo qaadan javascript aad u ballaaran tahay haddii aan dhaho javascript macna waa markaas luqad markaas aad u ballaaran balse waxaan isku dayaa markaas inta ugu muhiimsan ee isticmaalkeena anaga u badannahay inaan markaas ka soo qaadano si markaas ugu dabaqno projectyada markaas xigo oo aan sameyn doono insha Allah. qaybta inta ay ku joojinayaa fadlan haddii markaa videogan ku caawiyay like comment subscribe inta samee saaxiibka markaas adiga jeceshay inuu ka faa'iideysto ama programka jecel asna la share gareysay markaasi uu ugu faa'iideysto aad u mahadsantiin.